gedigood iskuulada haddii goob la wada keeno inuu Nuuraddiin guusha sida soo la garan maayo maamule go'aan loo inta hawsha gudanaya iyo macallimiin gaadhahoo wada gucleynaya inuu Nuuraddiin gaar yahay soo la garan maayo hablo wada xijaab goostay oo qariye guudkooda inuu Nuuraddiin gaar yahay soo la garan maayo hablihii gudbayeen iskuul dahab guddoonsiiya inuu Nuuraddiin gaar yahay soo la garan maayo waxba gabaygu ila gudbina waxaan ku soo gooyay yaa Nuuraddiin gaadhay oo jooga gayigeena. Tani waxay ahayd xafladda abaalmarinta ardaydii kaalmaha kala duwan ka gashay dugsiyada hoose dhexe ee Nuuraddiin ee ku yaala gudaha magaalada Hargeysa. Munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan, waalidiin iyo marti sharaf. waxayba furkeedii hadalla ka soo jeediyay maamulaha guud ee dugsiyada hoose dhexe Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf oo ka warramay tirada maanta ee abaalmarinayaan. Marka koobaad waxaan idinku soo dhaweynayaa iskuulada Nuuraddiin qaybihiisa kala duwan guud ahaantood gaar ahaan qaybtan aynu saaka u fadhino oo ah maalinteennii saddexaad ee aynu ardaydeena iyo ubaxeena ku abaalmarinayno. saaka waxaynu u fadhinayo inoo jooga ardayda upper primary-ga ama dugsiga dhexe fasalada 5aad 6aad iyo 7aad fasalada 8aad imtixaankooda iyaga wali ma soo bixino wasaaraddeenu ka sugaynaa. ardayda tirada leh ardayda fasaladaasi waxa ay ka kooban yihiin oo aynu saaka abaalmarin doonaa 258 arday oo 8,000 oo arday ka soo dhex baxay. imtixaan adag iyo shaqo adag oo muddo sanada soo socotay qiimeyn aan kala joogsi lahayn oo iskuulka furitaankiisa ilaa maalintii ugu dambeysay ee la xidhayay socotay. dadaalkii ay ardayda iyo waalidiintaasi bixiyeen baanay saaka bartan ku fadhiyaan. waxa sharaf leh oo xus leh oo in loo hambaliyeeyo mudan ardayda guusha keenay ee dadaalka sameeyay ee saaxiibadood iyo asxaabtoodii kale ka soo dhex baxay. waxa iyaguna ammaan mudan oo maanta xaq u leh inay farxaan waalidkii tacabkii iyo midhihii ay beerayeen oo si fiican u baxay oo go'aya saaka arkaya ee daawanaya. iyagana waxaynu leenahay haniyan lakum. macallimiinta iyo maamulada kala duwan ee dugsiyada Nuuraddiin oo ilbiriqsi kasta iyo saaxad kastaba ku dadaala taabagelinta iyo kor u qaadidda dhaqanka wanaagsan ee ardaydeena iyo kor u qaadidda tacliintooda in wax lagu kordhiyo oo ardaygu subax walba markuu iskuulka yimaado iyo marka uu rawaxayo uu farqi aqoontiisa ah inuu jiro ku dadaala. iyagana Ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro. intaa kadib waxa iyaguna mikrofoonka isaga daba maray madax kala duwan, marti sharaf iyo waalidiin oo si isku mid ah uga hadlay munaasabadda tan. dugsiyadeena Nuuraddiin oo taya iyo tiraba kaalinta koowaad kaga jira waxbarashada dalka maamulku aad bay u fara badan yihiin una kala duwan yihiin. haddii aan nahay xubnaha kormeerka shaqooyin fara badan ayaa waxa weeyaan oo dhinac walba leh ayaanu ka qabanaa dugsiyada Nuuraddiin. dabagalka iyo hubinta manhajka ardaydu ay dhiganayaan ayaa ka mid ah. waxaa ka mid ah dabagalka iyo hubinta buugaagta ardaydu ay wax ku qortaan oo si joogto ah aan uga warhayno oo bishiiba ugu yaraan 3 jeer arday kasta laga hubiyo buugiisa oo casharada ku qoro. waxaa ka mid ah exercise-yada iyo laylyada loo diro ardayda oo iyadana si joogto ah aan uga warhayno in laga saxay iyo inuu ardaygii si joogto ah uga soo shaqeeyay. maanta adduunyadu waxay ku tartamaysaa dadka waaweyn waa laga soo wareejiyay dareenkii oo dhan. waxa la yiraahdaa ummaddu haddii la doonayo inay toosto waxa xoog la saaraa ubadka. iskuulada Nuuraddiin intii anigu aan joogay waxyaabaha cajaa'ib kale ku arkay waxa ka mid ah caruurta dhammaantood xoog ayaa la saaraa xagga akhlaaqda 1 xagga waxbarashada 2 xagga diinta 3 iyo aqoonti kale maadiga ahayd. marka maanta waxa la yiraahdaa dhiirigelintu waa waxa loo baahan yahay sida hawada bani aadamku ugu baahan yahay. waxa la yiraahdaa markay bulsho shuruudda ay bulsho ku kacdo ay sare ugu kacdo waxa ka mid ah oo ay bulsho meel fiican ku gaadho waxa ka mid ah in ay basharka ama insaanka dhisto. inaguna madashan aynu joogno waa meel lagu dhisayo ardayga
iyo qofkii bani aadamka ha lagu dhisayo waxa la dhismaha la dhisaa guryaha la dhisaa iyo wadooyinka la sameeyaa waxa ka sii muhiimsan in dadkii la dhiso marka dadka aad dhisto ayay iyagu dhisayaan wixii kale quruxda badan ay dhisayaan marka waxa weeyaan hadalku waa isu kooban yahay waxa la yiraahdaa hadii bulsho horumartay hadii la kaxeeyo meel bulsho bidaa'iyo bilowa la geeyo bulshadii maskaxdii ay haysatay bil la tagaysaayo meeshaana ay ku bedelaysaa marka runtii waxaan aad baan u hambalyeeyaa sanad kasta munaasabad qurux badan oo halkan iyo meelo ka sii wanaagsan baa lagu qabto ayaynu u soo abaabulnaa ubadkeena ardayda guuleysatay ee kaalmaha kala duwan gashay si gaar ah ugu hambalyeeynaa waalidiinta tacabka muhiimka ee weyn galiyayna aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa macallimiinta had iyo habeenba u taagan inay ubadkaasi soo baxaan inta ka bacdi inta badan waxaad maqashaan markay mas'uuliyiintu hadlayaan iyadoo la leeyahay mustaqbalkii beritoolaatay ardayow habloyo inamaba mustaqbalkii beritoole ayaa tahay waxaa tusaale kuugu filan ardaydii iminka aynu ka daawanaynay barnaamijkii halkan ka socday intooda badani dalka ayay ka yihiin madax ama sharaa'ika kala duwan ay mas'uuliyiin ka yihiin marka haddii macallinka iyo maamulku mar kasta ay ku yidhaahdaan mustaqbalkii berri baa tahay waxaa tusaale kuugu filan macallimiin iyo maamul fara badan oo maanta nuuraddiin ka shaqeeya sidiinoo kale halkan fadhiyeen oo lagu lahaa mustaqbalkii berri baa tahay marka ardayow inta aad ku jirto waxbarashada inaad waalidkaaga iyo macallinkaagaba ka ducaysataa waxay muhiim u tahay mustaqbalkaaga dambe aanu idin barbar taaganahay mar kasta waxaan runtii idinkaga mahadnaqaynaa waxbarashada tayo leh ee aad ardayda siisaan waxbarashada wanaagsan ee aad ardayda siisaan waxaanaanu idin leenahay idin abaal gudi kari maynee ilaahay abaalkiina jannaha ka dhigo ilaahay abaalkiina jannaha ka dhigo waalidiintana runtii waxaan kula dardaarmayaa inay ardayda si weyn uga warhayaan oo maaragtay markay guriga joogaan ay soo rawaxaan waxbarashadooda iyo casharadooda runtii ay maaragtay door iyo kaalin weyn ka qaataan waxay maanta ii tahay farxad weyn in aan xafladan bilan ee boqoran kala soo qayb galo dugsiyada nuuradeen guud ahaan dugsiyada hoose dhexe oo maanta lagu abaal marinayo ardaydii midhaha fiican iyo darajada fiican ku gudubtay laguna dhiirigelinayo xafladan oo ay tahay dhiirigelin ay mudan yihiin waxaan leeyahay ardayda aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin dadaalkii macallimiintiinna waalidiintiinna iyo inta kale idin hareeri joogta ay idin soo geliyeen inaad ka midho dhaliseen oo ardaydii kale aad isku faca ahaydeen aad maanta ka darajo sarrayseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan leeyahay ardayda maanta halkan aan ka qayb qaadanaynin xafladan inaad idinkuna dadaashaan oo sanadka xiga aad ka mid noqotaan ardayda lagu abaal marin doono xafladan xafladeeda insha Allah taala idinkana waxaan idin leeyahay de kulli wala idin la tartamayaaye ama halka championka idin si xajisani ama waa lidin kala wareegi haddii aad si dadaashaan waa idin haysan haddii kalena hogaanka waa lidin kala wareegi marka waxaynu isku ognahay dadaal iyo akhlaaq wanaag xaaji mahad ibraahim maxamed maamulaha guud ee dugsiyada nuuraddiin oo isaguna gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey ardaydii kaalmaha kala duwan galay iyo kuwa la abaal mariyey isagoo sidoo kalena ka hadlay tayada waxbarasho ee dugsiyada nuuraddiin waxaan runtii bogaadinayaa ardayda faraha badan ee guuleysatay ee ka soo dhex baxday tirada faraha badan ee ardayda dugsiyada dhexe ee nuuraddiin ee maanta aynu u joogno xafladooda habliyeynamaba waan bogaadinayaa
waxaan gaar u bogaadinayaa hablaha ardayda sanadkan dugsiga dhexe dhamaysay ee iskuulada Nuurudiin oo natiijooyinkoodii imtixaanku wali aanay soo bixin oo 1000 arday taqriiban ku dhawaa imtixaanada ay wasaaraddu qaado ama xafiiska imtixaanaadku qaado inta la gaadhin imtixaano badan oo ka horeeyaan ardayda dugsiga sare dhamaynaysa kuwa dhexeba ka sii qaadnaa 15 arday ugu sareeyay oo 10 kaalmood hore wada galay waxaan u malaynayaa 2 inan oo kaliya ayaa ku jiray dugsiyada sarana sidii maalintii hore shalay mahadaraad halka laga yeedhinayay 10 arday ee 4000 oo arday oo dugsiyada sare dhigta ugu sareeyay 10 kuba wada hablay ahaay isbedel weyn baan arkaynaa xagga waxbarashada waxaan arkaynaa hablihii dadaalkoodii inuu kor u socdo waxaan arkaynaa inamo badan oo dadaalaya way jiraane aqlabiyad badan oo inamadii ahi in dadaalkoodii runtii uunu sidii la rabay ahayn waalidka waxaan ku dardaarayaa awlaadda oo dhan ha laga warhayo gaar ahaan inamada ilgaara waalido ha lagu eego Sheekh Mustafa Xaaj Ismaaciil baa jazaahullahu khayr muxaadarad uu leeyahay ama muxaadarooyin dhowr ah oo tarbiyada caruurta uu ka duubay ama uu kaga hadlayay ayaa hadal aad iyo aad u qiimo badan oo yidhi baa wuxuu ahaa Soomaalidu waxay yiraahdaan iska daaya waa nin oo meel unbu ka soo dhiciye markaasuu meel daran ka soo dhacaa buu yidhiyo waabihii ama hooyadii gacan u qaadaa hadduu doono ugu dambeyntii waxaa abaalmarino kala gedisan la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha kala duwan ku guulaystay